السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waan idin salaamay dhammaantiin asxaabta ku xiran Kaabe Technology and Language. aad iyo aad ayaan idin salaamayaa dhammaantiin bahda ku xiran YouTube channelka Kaabe Technology and Language. waxaan doonaynaa ama maanta xilliga idin tahayba inaan ka hadalno tenniskii lixaad ee past continuous tenniskaas ayaan doonaynaa inaan aan isdul taagno. qaybaha aan kaga hadli doono definitionka tenniskan inaan ka hadalno ayaan doonaynaa. marka koowaad qaybta koowaad waxaan kaga hadli doonaa definitionka ama qeexida tenniskan uu leeyahay ayaan kaga hadli doonaa insha Allah, inagoo laba qeexidood u soo qaadanay tenniskan si aad ugu fahantaan tenniskani wuxuu yahay iyo nidaamkiisa aan u raaci doono insha Allah. soo kale waxaan isdul taagi doonaa affirmative formka tenniskan uu ku shaqeyn doono. soo kale waxaan dul istaagi doonaa interrogative form examples iyo weliba negative form examples. markaa kusoo dhawaada saaxiibayaal, tenniskii koowaad ee casharadeenii aynu soo wadnay ee ku saabsanaa 12 tenniska. 5 tennis oo hore ayaan kasoo hadalnay. maantana waxaan ka hadli doonaa tenniska lixaad oo loo yaqaano past continuous tennis. past continuous tennis macnaheedu si kooban haddaan kuugu sheego, falkani waxa weeye tenniskan waxaa loo isticmaalayaa fal dhacay ama soconaya waqti tegay. fal dhacay ama soconaya waqti tegay ayaa loo isticmaalayaa. marka sidii kuwii hore uu ka yarduwan isagu waa past, laakiin still waxa weeyaan waa continue, wali wuu sii socdaa oo waa la sii isticmaalayaa. tenniskani wuxuu inta badan mulxad ka saarayaa ahaanshaha waxa loo yaqaano. sidoo kale wuxuu ku shaqeyn doonaa tenniskani waxa loo yaqaano was iyo where ayuu ku shaqeyn doonaa. marka aan bilowno inteynaan wax kale aynaan sii gelinin saan ashkood u dhammaystirno. what is the past continuous tennis? muxuu yahay past continuous tennis? the past continuous tenniska user waxaa loo isticmaalaa for an action, ficil baa loo isticmaalaa which ficilkaasoo was happening dhacaya in the past time, waqti lasoo dhaafay dhacaya, still welina continuously sii socda. weli al'aanana waxa weeyaan wuu sii socdaa oo waxa weeyaan falkii wuuna dhammaaday wuuna sii socdaa. past continuous tennis sidoo kale waxaan ku qeexaynaa qeexidan labaad aan kuu soo qaaday. user waxaa loo isticmaalaa for an action, ficil baa loo isticmaalayaa which ficilkaasoo was taking place or going on the past time. waxaa loo isticmaalaa tenniskan ficil tegay, welina waxaa loo isticmaalaa fal dhacay ayaa loo isticmaalaa, ama markaa maxay tahay soconaya waqti tegay soconaya. macnaha af Soomaali ahaan sidaas ayay noqonaysaa. marka labada qeexidood ayaan ugu soo talagalay tenniskan. deeraar waxaa jira two auxiliary verb, laba auxiliary verb oo user loo isticmaalo with this tenniskan loo isticmaalo ayaa jira, oo waxayna yihiin andeer waxa weeye waa verb to be oo markaa maxay tahay pastia verb to be oo pastia. soo kale waxaan u naqaanay verb to be ga amta iyo ista iyo arta ayaan u naqaanay. marka amta iyo ista marka ay past ay noqonayaan waxay isu bedelaan waa irregular verbs way, waxay isu bedelaan waxa loo yaqaano was ayay noqonayaan amta iyo istu, halka artina ay noqonayso marka where ay noqonayso marka pastiga laga dhigayo. formulada tenniskan aan raaci doono waxa weeyaan waa subjectiga oo loo geynayo auxiliary-ga oo ah verb to be ga was iyo where ah. sidoo kale loo geynayo verbka loo geynayo objectiga adverb of time kana waxa weeyaan dib ayaan ka sii raacsiin doonaa insha Allah idin ilaahay. marka si toosa intan waxay ka anfacaysaa qeexidii tenniska sida uu u shaqeynayo, verb to be inuu ku shaqeynayo iyo qaacidadiisii ayaan markaa maxay tahay halkan ku baranaysaa. siday u kala qaadanayaan kuwa aynu usoo bixinay affirmative formka maxay tahay markaynu kasoo hadlaynay tennisyadeenii hore singular formkaan usoo bixinay waxay qaadanayaan was ayay qaadanayaan, oo he iyo she iyo it ayaa wasta qaadanaya, halka weertana ay qaadanayaan they iyo you iyo waxa loo yaqaano we ay qaadanayaan. qaacidadan marka ayaan raaci doonaa affirmative formkana ama exampleska tenniskan aan ugu soo talagalnayna waa kuwan iyaguna. okay, affirmative form habka aan su'aasha iyo diidmada toona aan lahayn affirmative form waxa weeye waa
maxay tahay su'aalna aan lahayn diidmana aan lahayn ayaan u naqaanaa affirmative form waa hadal caadi oo su'aalna lahayn diidmana lahayn qaacidada aan raaci doono waa waatan halka inoogu qoran subjecti oo loo geenayo auxiliary-ga oo aan u soo qaadanay was iyo where aan u soo qaadanay verb-kii baynu u geenaynaa verb-ka waxa la socota ing dhammaan waxa continuous la yiraahdo tanisyada ay la socoto continue ay ahba ama marka maxay tahay continue ba waxay qaataan ing-da way qaataan wad la soconaysaa soo kale rules-kana way leeyihiin oo loo geenayo object-ga loo geenayo example tusaalaha koowaad aan qaadanayno marka I anigu was writing the lesson at 8 p.m. 8 o'clock p.m. anigu cashka waxaan qorayay 8 habeenimo ayaan qorayay p.m. past morning ayaa loo soo gaabiyay p.m. tan marka 8 habeenimo oo buuraha ayaan anigu cashka qorayay shii iyadu cleaning waxay nadiifinaysay the house guriga in the evening this evening fiidnimadan ayay guriga nadiifinaysay marka sidaan horeba kuugu sheegay ayda iyo sheeda iyo he iyo it waxay qaadanayaan auxiliary-ga loo yaqaano was ayay qaadanayaan afartaasu halka they iyo we iyo you ay qaadanayaan waxa loo yaqaano where-ta ay qaadanayaan marka iyaguna waxay qaadan doonaan where-ta ayay qaadan doonaan marka sidaa u kala fahan marka she was bay qaadanaysaa she iyadu was cleaning the house this evening fiidnimadii ayay guriga nadiifinaysay they iyagu were reading their lessons waxay akhriyayeen casharadoodii ayay akhriyayeen anigu was waxaan ahaa playing mid ciyaaray ayaan ahaa tennis all yesterday kubaddii kolayga shalay oo dhan ayaan anigu kubaddii kolayga aan ciyaarayay she iyadu was waxay ahayd reading mid akhriyaysay this bookgan waxay akhriyaysay all afternoon galabta oo dhan ayay bookgan akhrinaysay still welina hadday doonto way sii akhrinaysaa way sii wadaa we inagu were eating waynu cunaynay the breakfast quraacda waxaan cunaynay at 7 o'clock oo am ah 7 subaxnimo oo buura ah ayaan cunaynay marka am-tuna waa at morning ayaa loo soo eeda at baa loo soo gaabiyay am-tana morning subaxnimo ah ayaa markaa looga jeedaa the teacher macallinku was wuxuu ahaa explaining mid sharaxayay the lesson casharka ayuu sharaxayay 4 p.m. 4 o'clock p.m. afartii oo buura ah ayuu cashka sharaxayay oo gelin dambe ah markaa galabnimo ayuu sharaxayay the people dadkuna were listening waxay dhegaysanayeen BBC day dhegaysanayeen 5 o'clock p.m. shantii galabnimo oo buura ah ayay dhegaysanayeen the students ardayduna were waxay ahaayeen having kuwa sameynayay conversation wada sheekaysi ayay sameynayeen ardayduna the cat bisadu was waxay ahayd iyaduna running mid u ordaysa ee meat hilibka u ordaysa at 9 o'clock oo am ah ayay bisadu iyaduna 9kii subaxnimo ee saaka waxay ahayd mid u sii cararaysay ama u sii ordaysay meat hilibkiisa ay cuni lahayd ayay u sii cararaysay marka intan qaybtani waxa weeyaan waa affirmative form-kii waxa weeyaan waa hadalkii caadiga ahaa ee aan diidmadana lahayn ama su'aashana aan lahayn waxaan u malaynayaa inaad ila fahantay saaxiib si fiican ila fahantay taasoo dhan waxa akhrinta inaad waxaan meesha tan kuugu qoran inaad akhrido waxa ka mawla concept-tiga guud inaad qaadato tenniskani waxyaabaha uu ka hadlayo waxaan ku tenniskani wuxuu ka hadlayaa fal dhacay ama tegay ayuu ka hadlayaa sidoo kale ahaansho ah anigu saasaan ahaa sidaasaan ahaa shalaytoole anigu waxaan ahaa mid hurda ayaan ahaa noocyadaasoo kale ayuu ka hadlaya tenniskani oo inta badan uu qayaxaya marka okay waxaan u gudbaynaa affirmative form-ka halkaasaan kaga gudbaynaa waxaan u gudbaynaa waxa loo yaqaano interrogative form-ka okay interrogative form qaab su'aaleedkii tanna waxa weeyaan waa markii su'aasha la sameynayay weeye interrogative form qaab su'aaleed marka waa hadalkii waxa weeyaan waa su'aashi weeye su'aasha qaacidadan raaci doono waxa weeye auxiliary-gan soo horeysiinayna waxaan oranaynaa was iyo where say auxiliary-yada ay u kala qaadanayeen subject-gaan u geenaynaa verb-kan u geenaynaa ing-diisa wata iyo object-ga adverb of time-kuna waan ka dambaysiinaynaa oo hadda qaybtani waxay noqonaysaa auxiliary subject-guna waa kaas ayaa subject noqonaya verb-kiina waa kan oo ing-dana u wataa object-gina waa kan wixii halkaa kasii dambeeya waxa weeyaan waa adverb of time-kii weeye waqtiga waxaana ay dhacayeen marka wastu ay bay qaadatay baa laga hormarinayaa shida was baa laga hormarinayaa halka dayda iyo wiida
iyo waxa loo yaqaano halkan people dadkana waa jamc bay macnaha ugu jiraan student ardaydu jamc bay ugu jiraan dhammaantood wixii jamc oo dhan waxa laga hormarinayaa word ayaa laga hormarinaya was I writing the lesson at 8 o'clock am anigu 8 subaxnimo ee saaka waxa weeyaan miyaan qorayay cashka miyaan qorayay was she cleaning the house this evening iyadu miyay nadiifinaysay guriga fiidnimadii miyay nadiifinaysay were they reading iyagu miyay akhrinayeen their lessons casharadooda miyay akhriyeen all night xalayd caawa oo dhan casharadooda iyagu miyay akhrisanayeen were we eating inagu miyaynu cunaynay the breakfast quraacda miyaan cunaynay at 7 o'clock am waa su-aashii dhammaantood todobadii oo buraa ee subaxnimo inagu miyaynu cunayna quraacda was the teacher macallinku explaining miyuu sharaxayay the lesson cashka miyuu sharaxayay 4 o'clock pm afartii oo buraa ee galabnimo macallinku cashirka miyuu sharaxayay were the people dadku listening miyay dhegaysanayeen bbs the lectureka miyay dhegaysanayeen ama khudbadii miyay dhegaysanayeen at waxa loo yaqaano 5 o'clock pm shantii oo buuraa lecturekii ama khudbadii miyay dhegaysanayeen dadku miyay dhegaysanayeen were the students ardaydu having practice miyay sameynayeen wada sheekaysiga practiceka miyay sameynayeen at 4 o'clock oo pm afartii galabnimo oo buura ah miyay sameynayeen waxa loo yaqaano practice ardaydu miyay sameynayeen marka 4 o'clock haddaan sidan u qoro aan 4 o'clock aan idhaahdo iyo haddaan sidan qaybtan u qorto waa isku mid marka o'clock tani waxay kuu sheegaysaa buuraha inay saacaddu ay buuro tahay oo aanay macnaha waxba dhaafsiisanayn was the cat running bisaduna miyay u ordaysay meat hilibka at 4 o'clock afartii oo buuraha iyaduna miyay u ordaysay hilibka miyay u ordaysay qaybtaasina saaxiibayaal waxa weeyaan waa affirmative formkii waxaan ku idhaha affirmative formka was iyo where ayaa lasoo horumarinayaa oo auxiliarygii laga saari doonaa dibadda loo soo marin doonaa halka markaa uu geli doono pronounkii ama subjectiga waxaa loo yaqaanay subjective pronounkii ay halkan geli doonaan oo kuwana ay dibadda soo mari doonaan marka waa kuwan dibadda soo wada maray iminka was iyo where waa kuwan lagu soo wada bilaabay iminka tenniska laga soo hormariyey waxaan u malaynayaa inaad ila fahantay dhammaantood interrogative formkii iyo weliba affirmative formkii oo kasii horreeyo hadalkii caadiga ahaa ah okay qaybta ugu dambaysa ee tenniskan aan qaadanayno iyadoo qaybo badan ay kasii dambayn doonaan oo aan cashar kale kasoo samayn doono haddii ilaahay nafta inoo daayo wiigga soo socda waxaynu ku baran doonaa negative form diidmadii ayaan ku baran doonaa saan hore idinku soo sharaxay waxa weeyaan in badan ayaan kusoo dheeraaday in hadalka ay jiraan 3 qaybood ay jiraan affirmative form interrogative form iyo negative form kuwaasoo types ama maxay tahay parts u ahaa bayaanka qoraalka loo yaqaano statementiga waxaan idinku yidhi casharadii ka horreeyey aynu kusoo barnay statementiga partskeeda ama qaybaheedu inay yihiin interrogative form affirmative form iyo weliba negative form marka hadda negative formku diidmadii ayay ahayd hadalku waa hadal iska caadiya hadal su-aal lagugu weydiinayo iyo hadal marka maxay tahay diidma ah wixii lagu diidayo qaacidadan ayaan raaci doonaa marka subjecti was iyo where negative formka ayaan halkaa kaga xijin doonaa verbkii iyo engdii saasaan ugu xijina objectigii adverb of timekana markaa waxa weeyaan waynu kasii dambaysiin doonaa markaa la socod wanaagsan examples tusaalayaal I anigu was not written maan ahayn mid qoraya the lesson casharka at 8 o'clock oo am anigu 8 oo buuraa ee subaxnimo cashka maan qoraynin sheyadu was not cleaning may nadiifinaynin the house guriga ma nadiifinaynin this evening fiidnimadii may nadiifinayn iyadu guriga they iyagu were not reading may akhriyaynin their lessons casharadooda iyaguna may akhriyaynin we inagu were not eating maynan cunaynin the breakfast quraacda maynan cunayn at 8 o'clock oo am 8 subaxnimo ee saaka inagu maynan cunaynin waxa loo yaqaano quraacda maynan cunaynin the people dadku were not listening ma dhegaysanayn bbcda may dhegaysanaynin idaacadda bbcda
5 o'clock oo PM shantii galabnimo iyaguna BBC dadku may dhageysanaynin. The students ardaydu were not having ma sameyneen conversation wada sheekaysi may sameynaynin. And the cat bisadu was not running kumay carareen ama kuma ordayn the meat hilibka 9 o'clock sagaalkii subaxnimo oo buura ah may kumay ordaynin. Okay, halkaas ayuu intaan cashkan caawa maanta idinku soo talagalay intaas ayay ahayd cashkani qaybtan ugu soo talagalay wuxuu ahaa inaa kala fahantaan tenniskani wuxuu yahay sidoo kale qaacidooyinka iyo waxa uu ku shaqeynayo formka lagu qaabaynayo affirmative formka iyo qaacidadeeda iyo example-kii interrogative formka iyo qaacidadeeda iyo example-kii iyo waliba negative formka oo waa ka negative formka qaacidadiisii iyo example-kii intiiba waan dhiganay. waxay noogu xigi doonaa waxa loo yaqaano tenniska xiga intaynu isugu iman doono. saaxiibayaal dhammaantiin sidaa isugu dhantihiin waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. wixii su-aalaad qabto commentiga ayaad igula soo wadaagaysaa. intiinii hore ee igula soo wadaagtay ama ila socotayna aad ayaan idinkaga mahad celinayaa sida fiican ee aad noola socotaan. badiyaaba aad noogu xirantihiin aad baa ugu mahadsantihiin. haddaad videogan ka heshay ama se aad channelkan nagu cusub tahay subscribe ayaanu ka codsanaynaa inaad channelka ku samayso. sidoo kale haddaad videoga ka heshayna like-ta aad noo saarto. aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay saaxiib daawashadaada iyo sida quruxdooda badan aad noola socoto. aad baanu idinkaga mahad celinaynaa. mar labaad waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. waynoo cashkan cashka xiga.